halku dhiga ah wiilka ugu shidan gabadha ugu shidan dhakhtarka ugu shidan qof kasta ugu shidan magaalada ugu shidan halku dhigaas micno weyn ayuu igu fadhiyaa waxaa jiray samafal aan inta badan sameeyno samafalkaas oo lacag la soo diraya shacabka Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب قيمها يقاياها نجمضا إن جلست عذا إذا جاء ميديا كسر دوادا ورئيس حيسها لها أي الله يلني حسن مصطفى إسحاق حسن توب أو كمدا يوتيوب برضا وعن سن مجال مقدشو داوشو عن حسن وجورا كسر دو برنامجك هذا كوب اللعبة يمجع عجا حسن وقف ما حاجة كل شيء هيرك وحبر الشو حسن أنت جالس سنتهي magacaygu saddexan waa xasan mustafa saxaaq xasan toob waxaan ku dhashay degmada buurhakaba ee gobolka baay sanadka markuu ahaa 1991 runtii waxbarashadeeda waxaan ku qaatay magaalada caasimadda muqdisho idaa jaahu saaxiib waxaa ogtahay inaan iskala soo shaqeynay idaacaddii afgooye oo aad adiga ka ahayd madaxda xilligaas oo aan tababarka ka ahaa runtii waxbarashadeeda ilaa waxay gaarsiisan tahay heer darajada koowaad ilaa darajada labaad ee jaamacadda ee xasan waxaad kow ka ahayd youtuberadii ugu caansanaa ee magaalada muqdisho si awood leh ugu soo muuqda muuqaalkaaga iyo magacaagana wuxuu gaaray meel walba ay Soomaali joogto maxaa ariga ku fududeeyay maxay tahay sirta ka dambaysa inaad heerka inta la ka gaarto youtube-ka arrinkaas waxaa ii fududeeyay inaan sameeyay dadaal badan juhdi badan aan ku bixiyay in maxaa la dhahaa meediyaha horumar badan ka gaaro inaan soo duubi jiray muuqaalo ay dadka aad u jecel yihiin inaan xooga saari jiray barnaamijyo markasta aan isnahayo shacabkaaga way xiise gelinayaan taas ayaa sabab u ah in aan guushaas ka gaaro youtube channelska iyo arrimaha facebookaba marka saaxiib idaajo waxaan ku leeyahay hawsheeda ilaa hadda waa sii wada waan sii loo jibaaraa manihi qof ficil badan waxaan ahay qof inta badan dadaala juhdigiisa ku bixiya inuu horumarka gaaro shaqadiisa xasanow bishii ramadaan ee na dhaaftay bilowgeedii ilaa iyo dhammaadkeedii waxaad wadeen inaad afurisaan dadka danyarta aan waxba haysan sideed ku maareyn jirteen dhaqaalaha aad ku bixisaan dadka danyarta ah xagee idinka soo geli jiray waxaa jiray samafal aan inta badan sameeyno samafalkaas oo lacag la soo diraya shacabka Soomaaliyeed runtii shacabku way aaminsan yihiin maadaama dad nugu xiran yihiin arrintaas ayaa sababtay inay dadka aad noo aaminaan oo ay noo soo diraan lacag kor u dhaafay ilaa $50,000 Mareykanka ah waxaa dhici jirtay bish Ramadaan maalin kasta in la soo diri jiray lacag 1,000 ilaa 2,000 ilaa maadiisa waxaan gaarsiin jirnay xirooyinka barkacaysh magaalada muqdisho si ay ugu intifaacaan marka qorshaha samafalka waa kaalinta koowaad ee guusheena waan gartay laakiin xasan dadka ku nool magaalada muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada ee danyarta ah waa dad aad u tiro badan kumana filnaan karto inta aad haysaan ama aad haysateenba soo bishii ramadaan maadaama aad afurinayseen qaab noocee ayaa dadka ku xulan jirteen idaaja waa maasan tahay dadka aan afurin jirnay bisha barkiisan ramadaan waxaa u kala xuran jirnay dhowr waji kow waxaan sameey jirnay in dadka aan eegno survey aan kusoo sameeyno area aan raashinka geenino area aan maxaa la dhahaa cuntada geenino inaan survey kusoo sameeyno marka ogaano in baahi xoog leh halka ay ka jirto kadib ayaan ku dhaqaaqi jirnay qof kastana sida u kala baahi badan yahay ayaa lacagta u siinaa dharciid haday tahay qofku ka baahi badan yahay ayaan ugu horumarin jirnay xasan aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ku weydiiyo su'aal ay dadka badan isweydiiyaan su'aashaas wax kale ma aha waa hal ku dhigaagii ahaa hebelka ugu shidan magaalada sida dhakhtarka ugu shidan magaalada darbi jiifka ugu shidan magaalada iyo wax la mid ah soo hal ku dhigaasi macna intee la eg buu kugu fadhiyaa muxuu siyaa ujeedada ka dambaysa
halku dhiga ah wiilka ugu shidan gabadha ugu shidan dhakhtarka ugu shidan qof kasta ugu shidan magaalada ugu shidan halku dhigaas micno weyn ayuu igu fadhiyaa ka xasan ahaan waxaa jirtay 2017 markaan bilaabeynay barnaamijkan waraysiyo aan ka qaadi jirnay bulshada waxaan inta badan waraysi jirnay hablaha mar kasto maalin kasto ama habeen kasto waxaan waraysi jirnay gabar marka halku dhigaas wuxuu ku baxay in mar kasto oo aan qof waraysanayno ama gabar waraysanayno aan dhahno gabadha ugu shidan wiilka ugu shidan qofka ugu shidan sidaas ayaan halku dhigaas ku qabsaday ilaa ay haddana waan wadaa micno weyn ayuu igu fadhiyaa qofka ugu shidan iyo hebelka ugu shidan aad iyo aad baad u mahadsan tahay xasan waan ku salaamayaa waana kaaga mahad celinayaa sida qiimaha leh aad iga ogolaatay waraysigan xiisaha leh aad baan ku salaamayaa walaal aad u mahadsan tahay adigii shacabka waxaan ku leeyahay guuleysta please subscribe u saar saaxiibkayga idaaja janalkiisa si uu u kobco oo u gaaro horumar ballaaran mahadsantii saaxiibayaal saaxiibkeen xasan toob idin leh nabadgelyo asxaabta qiimaha iyo qayaha naga mudan ee nagala socday idaaja media halkaas ayuu noogu eg yahay waraysigii aan la yeelanay youtuberska weyn ee xasan mustafa isxaaq xasan toob haddaad nagu cusub tahay oo aad idaaja ku cusub tahay subscribe dheh haddaad nala joogto qiimo iyo sharaf badan baan ku haynaa waad nala socon doontaan waraysiyo kuwaan la mid ah hadduu ilaahay raali ka noqdo aad baan idin salaamayaa